عليكم ورحمة الله وبركاته. طاوضيال كسر دوادة برامج كني منطقي محا عصب ولا باكل سعود جرتين تيفي عالمي جاسون ويوس تيفي حرنت اللحان كلنا هاي مقارد الله سعانو يا حرنت قبل كسر وحنا برامج كألا بدنا سعسيان ومن أحمد عبد من منطقة هذا هو برامج كمان تمرتي يجوا وأوان عمر وأوان ترك كسر لابتي لبض كوني لحية تبنكي إن بسم الله منا ولا لون دوهاي وأنا ما سنتهاي إن aadna waan ugu qanacsanahay inaan barnaamijka kala qayb qaato waa tahay abwaande waxa tahay abwaan kamid abwaanada gobolka Sool waxaad leedahay maasooyin badan gabayo badan iyo waliba waxyaalo badan oo alifto kolay barnaamijka waxaynu ku jirtaa maanto aad macaan oo lagu magacaabo hibada ku qarsoon naftaada talow hibada ku qarsoon naftaada waan fahmaynaa waa wujuudii badan tahay laakiin maxay tahay qisada ka dambaysa mar labaad muna waad mahadsan tahay waa runtaa maanta waxaa miiska inoo saaran oo aynu falanqayn doonaa ama aynu saafi doonaa maanso dulucdeeda ama sumadeedu tahay hibada ku qarsoon naftaada sida magaca ku laran ama magaca ka dhex muuqata maansadu waxay ka hadlaysaa dadka ibni aadanka ahi in loo abuuray micne ujeedo qof waliba inuu ku fiican yahay meel oo ay ku jirto qayb cilmiga kamidi hadii uu raaco marka qaybta cilmiga kamida ee isaga ku jirta inuu noloshiisa guuleysto cid kasta oo nolosha guuleysatay waxay raacday hibadeedii cid kasta oo nolosha guul dareysataana waxay raacday hibo mala awaala oo aysan lahayn marka maansada hibada ku qarsoon naftaada waxaan ku boorinayaa dhammaan ibna aadanka khaasatan Soomaalida inta afkan aan ku maansoonayo u dhalatay ama baratay inay leeyihiin hibooyinkoodana raacaan isla markaana iyagu ay guuleysan doonaan dadka ay la nool yihiinna ay ku soo biirin doonaan qof kastoo nolosha wax uriyay ama dunidan wax ku soo kordhiyay waxa uu u sahlay inuu wax soo kordhiyo wuxuu raacay hibadiisii maansada si aan u tilmaamo dadkayga ayaa waxa igu dhalisay inaan uriyo maansadan oo ka hadlaysa hibada iyadoo isla markaa cuskanaysa meelo culus oo supporting ama taageeraysa in hibadu ay tahay waxyaabo qaali oo dunidana isku raacsan tahay in qof waliba hibadiisa kolku raaco uu guul gaaro waa tahay abwaan waxa sheegtay maansada inaad kaga hadlaysid bini aadamka sidoo kale aad kaga hadlaysid in ay tahay murtidu waxaan la iibsan karin bal inteena u gudagalay maansada bal muuqaal guud aniga bulshada ku daawanaysa naga sii hadii aan muuqaal guud ka bixiyo maansada inta aan dhex gelin iyadoo oo tix ah si tiraabaysan hadii aan ugu gudbiyo adiga iyo bulshadeena daawanaysaba maansadu hordhaceeda guud wuxuu ka hadlayaa in waxaan ku soo halqabsanayaa qofan aad u jecelahay xaaskayga waxaan ugu soo halqabsanayaa in aan suugaanta ciyaar iyo maalayacni midna aan u bilaabin ee aan u bilaabo in aan ummadda wax ugu gudbiyo humaag labaad ee aan ku soo qaadanayo maansada wuxuu noqonayaa in aan murtida la iibin oo murtida hadii lagu doono maal aan waxba laga helin iyaduna ay noqoto wax sal guura oo aan ku doonaynin wax hantiya wax magaca wax maala iyo wax ibni aadan uu gacanta ku hayaba inaan ku doonaynin inta waxa si raacsan oo humaageeda saddexaad uu noqon doona waxyaabahan la ikhtiraacay ee dunida dhammaan toodiyaala sida kaamiradan hadeerta laga duubayo oo kale qof ibni aadan ikhtiraacay oo curiyay qofka curiyay wuxuu hibo u lahaa inuu soo saaro waxaan maanta gacanta ku hayno marka in wiilasha Soomaaliyeed ee u leh hibada waxyaabo fara badan oo kala duwan inay soo saaraan inaan kula hadlayo inay wax ku duugan yihiin iyaga qalbiyadooda marka waxa qalbiyadooda ku duugan in aan daaha ka qaado ayuu noqonayaa humaageeda kale waxaan kaga hadlayaa dunida cid kasta oo gaadhay horumar in ay ku ladnayd horumarka ay gaadhay hibo
humaageeda saddexaad waxaan kula hadlay humaageeda kale waxaan kula hadlayaa hooyada oo barbaarinta ubadka ah waayo aabuhu wax fara badan kama oga caruurta saacado fara badan lama qaadan karo laakiinse hooyadu mar walba way ka warhaysaa ilmaheeda marka ilmaha haddii aanan lagu korin hibadiisa hadhowtadii ma noqonayo wax looga caayo oo dunida isna heer ka gaadha ama laga doonayo wixii laga doonayay laga helo marka humaaga kalena waxaan kaga hadlayaa maalmaha Soomaaliga qayb ka mid ah kulimaansooyinkii hore waxaan ku soo qaatay maalmaha xidigaha maanta waxaan ku soo qaadan doonaa maalmaha shaqada maalmaha la yiraahdo anigoo ku muujinaya inta jeer ama hadood ama goor ama kal ee aan maansadan u kacay ama maansooyinkayga aan u kaco iyo qaababka aan u abuuro inta marka maalmaha wixii ka dambeeya waxaan gelayaa oo aan iyagana kaga hadlayaa in hibada lagu gaaray nabinimo darajada ugu qaalisan ee aadanuhu gaadho waxa weeyaan nabinimo in qofku noqdo shaqaale Ilaahay marka in hibada nabinimo lagu gaaray waxaan ku soo qaadanayaa maansada gudaheeda Nabiyullaahi Haaruun alayhi salaam oo Muuse walaalkii ahaa in uu Muuse markii uu dacwoonayay uu lahaa Ilaahayow walaalkay Haaruun baa arab wanaagsan wuxuuna leeyahay hiba hadal buu leeyahay marka hibada hadal uu leeyahay igu xooji si dacwada uu ila wado marka iyana waan ku soo qaadanayaa oo waxaan ka dhiganayaa cadayn ama supported reference waayo wax reference loogu noqdo waxa ugu weyn waxyigaas ugu weyn marka in hibadu ay leedahay qiimahaas ayay maasadu ku soo gabagaboobi doontaa waa tahay daawadayaal ujeedkeedii maantada uu abwaanku u sameeyay uu inala wadaagay waxaan filayaa inaad ka bogateen bal iminkana maansadii oo dhammaystiran ila daawada xamdaay hogga maansadayda hormayntii gogoldhigeeda hawraartii shaqaladeeda haddaanan rarayn mugdooran ma hawlo kaskoo ma horsho xamdaay hamigiiyo dareenku habbuu igu yidhi dadkaaga hubaal aniguna tixdayda waxaan uga dhigi hoggaanka ku sooro hagaaga fiican hedayda intaan la saarin hog iyo iil lay aroorin inaan hindisaha qorsheeyo inaan haga maatadayda midaan ku hanweynay weeye hubaal eebbaa ogsoone haddana ummad yahay si qeexan haldoorada weedhahooda murtida huridiiyo abuurka halsheegiyo curitinkeeda hunguri ruuxii ka baadha ma yeeshahan iyo damiire aniga horumar baa ay deeqa haddii sidaan hore u doortay halkaan rabo maalmo doorsho ma raba hanti iyo adduunba ma raba hadyad laygu siiyo ma raba kursi lay hibeeyo ma rabo hadda iyo wax yaalla ma raba hayn ruux daciifi u haysto inuu wax haysto hore biyo maalin weynta hadh ee baynaan istaago ku helo ridihii iyo qabuulka waxaana ay ruux u heelan hadhowta abaalikaaba bulshada hilinkiiyo jidkooda hoog buu ku wadaa dadkeenna haddaanan sheegin haddaanan hadeer u sheegin haadaanta dalluunta weecsan halooti jarkaa silsaalan hay haatada sii daluulan inay hafashada ku iilan midaan hubo weeye taasi halkaan ka hadlay iyo mucdaydu hal farid halaltaminsan weeye habaha lagu helo hal daahan helidda wax la helay adduunka helaa helay taynu hayno tabtii nin wax helay hagaysay heluhu tuu hubanti maalay weeyaan hadafkiiyo ujeedku heeryada qarisee ku aadan hagoogta inaan ka qaado handhisid haddaan dhiska soo manqaxo hal weeye haraadka reebta hal weeye hagaaga beerta hal weeye hoggaanka taabta hal weeye hamuunta biisa hal weeye hamiga sifaysa hoodada alla kugu abuuray hibada ku qarsoon naftaada haddaadan ogeyn khasaartay adduun ruux heer ka gaadha adduun ruux hayn ka maala adduun ruux haga dhiggiisa adduun ruux himilo beera adduun ruux hore u seeda adduun ruux hadaf tilmaama adduun ruux hadimo baaja adduun ruux hadal ku reeba hubaal idilkoo dadkaasba hamuuntiiyo jamashadooda hibaa ku kabnayd falkooda hooyay hindisaha caruurta
haddaan himilada wanaagga hibooyinka eebba siiyey hoodada lagu korin duxdeeda hankoodu ma yeesha doorka hambeeya hal looga aayo hooyay ubadkiiyo ciyaalka haddaydan barbaarintooda hufnaan ku rabayn hadeerto hadhowta wixii yimaada ogow idinkaa horseeday adaa hooyoy dirkaaga adaa hooyoy dadkaaga adaa haba oo daryeela hadhsiga adigaa ku soora hunguri adigaa ku quudsha hurdana adigaa ku layliya hugiyo labiskooda saanta adaa u huro u iibsha adaa hargab iyo xanuunba huqjiris adigaa daweeya qof yow hadalladan dhegayso halbeegna ka dhiga astayso hoggaanka hagaaga beegso hortaadiyo laaca tiigso ha hiifi naftee dulqaado halkaad kari weyday aaso hadhaaga la gaadhi seeso hungow ha ku jirin waqaaye hadeer basadkaaga dooro hadhkiyo mugdigii ku heeray hagoogta ka qaad kashaada haleel libintiiyo samaanta hadhuubkiyo gaawahaaga haleela dhaloo irmaana horweyn dhan haddaad ku maasho adoo haqabtiray mugooda haddaad kuwa doodan joojin inuu hirqan oo khasaari midaan hubo weeye taasi hayaan hadafli'i la qaaday hayaan hubantida ka caydha naf howlan misana hoggaanla hog bay ku dhacdaa waqeede hantida lagu siiyey doono hibada lagu siiyey doono halkaa haldheh oo astayso halkaa haldheh oo dhitayso halbeegsandheh oo daliisho heelada dulucdiiyo alfaada heensaha jarihiiyo tubteeda humaagiyo jaadadkeeda haleelkiyo yoolkan qeexan hilaatirsigeenna yoomka ayaamaha haybabkooda maxaan u huwaday go'ayga inaan heensaha irmaanta haleelo tixseesta kaydka nagaad sunni sanni habeenah habayntiiyo curintan saafan hor eebbe maxaan u toosay koodaadh harimiyo kulayla anoo hiil iyo wax toosin u heelan dan guud hagaajin dantayda maxaan hilmaamay habeen dama oo la seexday hiraab goonyaad la jiifo ugbaad hiir iyo alleyla maxaan haabtoo kaskayga hormeeyey alfaad xis heerta hooyaad nasashada la xeersho maxaan u huwaday go'ayga maxaan hurdada iyo cadiirka hohay uga kacay furaashka inaan hurataan aqaano inaan habo maatadayda inaan hago oo hanuunsho inaan hufo maansadayda inaan hagarli'i tixdayda hayaan saxan abid ku muujo waxaan hubin habid u toosay qalbiga hodanaa fahmaya ruuxii hanadaa kasaaya ha-oo iyo liid ishiifay hadaadun daciifi moogan qofyow hadalladan dhegayso halbeegna ka dhigo astayso haraadkiiyo diifta daalka haqaygiiyo luunka jiilka habaaskiiyo boodhka saanta hugaagiiyo oogadaada hataad ka tirtood naftaada habaysay halkii dantaada hareertiiyo dariska jaarka haybtaadiiyo eheladaada dhugo hadimada dadkaaga ka saar hanfigiiyo dhibyaalka ogow han ku laban dadaalna hiigsiga weligaa ha tuurin samaanta ta heer sarraysa waqaa hubantida ta fiican ku hiro kuna hawl naftaada ilaad hore iyo quruumo hadeer ka hor iyo fal mooday haddaan hibada iyo muggeeda higaadiyo doorarkeeda hanuunkiyo diinta eebbe qur-aanku siduu hufnaansan u qeexay hibooyin dhowra hawraartan haddaan ku muujo hibada hadal iyo lisaansan haaruun nebinimo ku gaadhiye u hayso wax weyn duxdeeda ansixid weedho qeexa halbeeg noloshaada kaaba hawraar la manqixi kalkeeda digeed hagarli'i u quudha heed joogta haddiyo mid kooyi hambilid hibo farid xaqiiqa hayaansixid weedho qeexa halbeeg noloshaada kaaba hawraar la manqixi kalkeeda digeed hagarli'i u quudha heed joogta haddiyo mid kooyi waa tahay daawadayaal maansadii aadka u macaanayd hibada ku qarsoo naftaada waxaan u malaynayaa aad baad uga bogateen dhammaantiinna inaad qiirooteen waa macquul abwaan maansada koley anigu shaqsaanta markaan ka hadlo ma jirtaa maansadan mid la mida oo aad noo soo wado muna waad mahadsan tahay marka labaad iyo mar saddexaadba sidaad sheegtay koley sidaan maansada gudaheeda aan ku sheegayay
badi waxaan jeclahay inaan ka hadlo mar walba qodob loo baahan yahay oo bulshada wax taraya way jiraan maansooyin kale oo iyaguna u dhigmatan oo ka hadlaya waxyaabo loo baahan yahay oo aan soo wado insha Allahna aan jeclaan doono inaan barnaamijkaaga laftirkiisa aan ku lafagurno laba waano oo khuseeya maansadan hibada ku qarsoon naftaada ilmuhu marka uu jiro 7 sano ilaa iyo intuu 12 sano jiro waxyaabaha uu ku ciyaaro favorite-kiisa uu jecel yahay waa qayb kamid ah hibadiisa barito wuxuu noqon doonay waxaad u fiirsataa hadeer gabdhaha yaryar markay ciyaarayaan waxay ku ciyaaraan alaabay aruusad iyo wax la karinaya iyo waxaas ku ciyaaraan waa hooyanimo ay barito u diyaar garoobayso arki meeshii gabadh yar oo ku ciyaaraysa baawur qarrafla iyo guri iyo wax dhisay sameynaysa mar walba laakiin waxay ku ciyaaraysaa wixii hooyo looga baahnaa ilmaha labkaani wuxuu ku ciyaarayaa wixii dhadig looga baahnaa ama gaari ha sameeyo ama guri ha dhiso waxaan la dardaarmayaa waalidka Soomaalida in ilmaha inta uu urinta leeyahay ee maskaxdiisu u furan tahay inuu wax uriyo inaan la helin oo loo daayay hibadiisa waxaad arkaysaa ilmo yar oo iskii isagu u doontay in alaabu ku ragto wadanada hormaray waxyaabaha ay ku hormareen waxa kamid ah in base-ka ilmaha in guri walba laga soo dhiso wadanka base laga soo dhiso wadanka marka aan leeyahay waa in guri walba laga soo dhiso shakhsi ilmaha marka ilmaha yar waxa la geenayaa marka uu 7 sano 6 sano gaaro meel ay la geeyo baby shop oo toys yaalaan wuxuu qabsanayaa oo dooranayaa marka select gareynaya waxa uu jecel yahay marka oo hibadiisa ah isagu isma oga waxaad khasbaya oo maamulaya hibada ku jirta ilmaha yar marka loo soo iibiyo waxa muddo fara badan wahayo ku koro wuxuu ku noqonayaa wixii khabiir halka waxa lagu hilay oo la caburiyay maan wax urinayay baabarta lagu goblamiyay oo laga jaray inuu wax uriyo si wadaya mar labaadna hibada waalidka Soomaalida way lumiyaan oo ilmahu markuu dugsi sare gaaro oo ka baxo dugsi sare kuuliyada uu qaadanayo ee jaamacadda waxay ku xiran tahay waxyaabihii uu takhasuska nolosha ugu dambeeyay aadanaha uu ka qaban lahaa ama naftiisa uu qaban lahaa marka waxay doortaan qayb kamid ah in waalidka go'aanka iskale aabe cali waxa dhiganaysa engineering boodhanaya waxa laga yaabaa 5 lagu dhuftay 5 inuu soo aqoon waa in ilmaha la weydiiyaa muhiimadda waxyaabaha uu doonayo inuu noqdo maadooyinku ku wanaagsan yahay marka isaguna guul buu gaarayaa waalidkana guul buu gaarsiinayaa bulshadu la nooleeyana guul buu gaarsiinayaa marka waxaan raacinayaa labada dardaaran oo ah ilmuhu intuu yar yahay aan hibadiisa la lumin markuu weynaadana yaan hibadiisa lagu controlin waa tahay abwaan warbintiga gabagabadii barnaamijkeena yaad halkan ka salaamaysaa yaas u mahad celinaysaa fursad ii siisay inaan cid salaamo ama aan u mahad celiyo way badanaysaa waqtiga aan qaadan doonaa hase ahaatee anigoo isku soo duubaya dhammaan waxaan u mahad celinayaa ummadda ku hadasha luqadda Soomaaliga ee u dhalatay waliba waxa kale oo aan mahad gaar ah u celinayaa in barnaamijkan qabsoomo cidii nagala qayb qaadatay oo ahayd hoolka kulan aynu fadhino waxa kale oo aan u mahad celinayaa jaamacadayda aan ka mid ahay ardaydeeda Sahal University waxa kale oo aan u mahad celinayaa dhammaan ama salaamaya inta muuqayga iyo magacayga taqaana fan iyo hal abuurba ee dunida daafaheeda kala joogta tahay daawadayaal waxa intaan ugu eeg barnaamijkeeni maandeeqaya maxaa cusub maanta marti noogu abwaankeena Cumar Ismaaciil Digeed oo ah abwaan kamid ah abwaanada gobolka Sool ahna abwaan Soomaaliyeed waxaan u mahad celinaynaa dadkii nagala qayb qaatay barnaamijkan quruxda badan soo gudbintiisa oo ugu horeeyo hoolka kulan iyo sidoo kale Farduus Liibaan
waxaana barnaamijkana socodsiinaya anuu Muna Axmed Cabdi Muna Maandeeq ah annaka ee bahda TV-ga Samno News TV waxayna kaga tagaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh